ururka wanalef ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray 62 dhalinyaro ah oo laga ururiyay deegaanada kala duwan ee Puntland kuwaas oo loo gacan galiyay hay'adaha ammaanka ee dawladda federaalka Ethiopia. Jamhadda wanalef ayaa war-saxaafadeedka ay soo saartay kaga hadashay dhalinyaro ka soo jeeday dawlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo laga qabtay deegaano kala duwan oo Puntland ah kadibna lagu wareejiyay hay'adaha ammaanka ee dawladda Ethiopia. Dhalinyaradan oo tiradooda lagu sheegay 62 qof ayaa sida wararku ay tilmaamayaan ka shaqeynayay goobaha macdanta dahabka ee milxa ee Puntland. Maamulka Puntland ayaa hore u sheegay in dhalinyaradaasi lagu qabtay howlgal amni iyadoo mas'uuliyiin kala duwan ay soo bandhigeen sharaxaado ku saabsan dhalinyaradaas iyo waxyaabihii ay ka shaqeynayeen. Puntland ayaana sheegtay in dhalinyarada ay ahaayeen tahriibayaal inay galaan dalalka carabta. Bayaanka ay soo saartay oo wanalef ayaa lagu sheegay in ururku walaac ka qabo qaabka loo maray xariga iyo wareejinta dhalinyaradan. Jamhaddu waxay xustay in sida lagu baahiyay warbaahinta iyo hadallada mas'uuliyiinta qaarkood dhalinyaradan lagu qabtay magaalada Boosaaso kadibna loo gudbiyay dawlad deegaanka Soomaalida loona gacan galiyay hay'adaha ammaanka ee dawladda Ethiopia. Wanalef ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta qaar ka mid ah ay tilmaameen dad loo waday tahriib hase yeeshee xogta ay heshay ayaa muujinaya in ay ahaayeen shaqaale ka shaqeynaya goobaha macdanta ee milxo kuwaas oo Boosaaso u yimid xilli ay fasax ka ahaayeen shaqadooda. Jamhaddu waxay sheegtay inaan si cad loo soo bandhigin cadaymo muujinaya in dhalinyaradaasi loo waday dal shisheeye. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu weydiiyay su'aalo ku saabsan saldhigga sharciga ee lagu xiray dhalinyarada iyo awoodda sharciyadeed ee loo adeegsaday wareejintooda. Wanalef waxay sheegtay in wareejinta dadka laga tilaabanayo xuduudaha caalamiga ay tahay inay ku dhacdo hannaan sharci ah oo waafaqsan dastuurka caalamiga ah iyadoo la dhowrayo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta. Jamhaddu waxay intaasi ku dartay in dhacdadani ay dhalinayso walaac la xiriira habraacyada cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha isla markaana ay mudan tahay baaritaan iyo dabagal madax bannaan. Dhanka kale wanalef waxay sheegtay in kiiskani uu muujinayo caqabadaha dhaqaale iyo shaqo la'aanta ka jirta dawlad deegaanka Soomaalida taasoo khasab ka dhigaysa in dhalinyaradu ay ka baxaan deegaanka dhinaca kalena maamulada dariska ah ay u raadsadaan shaqo. War-saxaafadeedka ka soo baxay ururka wanalef ayaana lagu yidhi sida tan: Jamhadda wadaniga xoreynta waxay walaac ka muujinaysaa Jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxay muujinaysaa walaac weyn oo ay ka qabto xariga iyo wareejinta 62 dhalinyaro Soomaali ah oo ka soo jeeday dhulka dawlad deegaanka Soomaalida Ogaadeniya kuwaas oo la sheegay inay ka shaqeynayeen aagga macdanta dahabka ee milxa ee Puntland. Sida ay sheegeen warbaahinta Soomaalida iyo hadallada mas'uuliyiinta qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso kadibna lagu wareejiyay dawlad deegaanka Soomaalida. Intii ay dhacdadan socotay waxaa soo baxay warar iyo sharaxaado kala duwan oo ku saabsan sababaha loo xiray iyo qaabka loo wareejiyay mas'uuliyiinta ayaa ugu dambeyn tilmaamay in dhalinyaradan ay ahaayeen dad loo waday tahriib hase yeeshee xog la helay ilo deegaan ayaa muujinaya inay ahaayeen shaqaale ka shaqeynayay goobta macdanta ee milxo kuwaas oo Boosaaso u yimid xilli fasax ay ka ahaayeen shaqadooda sida ay sameeyaan shaqaale badan oo dunida ah. Ilaa iyo hadda lama soo bandhigin cadaymo cad oo taageeraya sheegashada ah in loo waday dal shisheeye. Sidaa darteed shacabka ayaa mudan in la siiyo jawaab cad. Waxay ahayd in saldhig sharci ah lagu xiro dhalinyarada waxayna ahayd in la soo gudbiyo cadaymo dhammaystiran iyadoo la ilaalinayo awoodda sharci iyo nooca loo maray ee loo gudbiyay dhalinyaradaas dhinaca kalena loogu gacan galiyay dawladda Ethiopia. Waxaa sidoo kale walaac gaar ah leh wararka sheegaya in saraakiil amni oo Ethiopiana loo ogolaaday in ay la kulmaan dhalinyarada iyagoo ku jira xabsiga Boosaaso markii dambe lagu wareejiyay hay'adaha ammaanka. Wareejinta dadka ka tilaabaya xuduudaha caalamiga waa in ay ku dhacdaa hannaan sharci oo daafran, kormeer garsoor iyo ixtiraam buuxa oo loo hayo xuquuqda aasaasiga ee muwaadiniinta. Wareejinta la sheegay in dhalinyaro Soomaali ah laga qaaday Soomaaliya loona geeyay Ethiopia iyadoo aan si cad loo shaacinin dacwada sharciyadeed ama maxkamadeed waxay dhalinaysaa walaac la xiriira ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah, habraacyada cadaaladda iyo heerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Sidaa darteed dhacdadani waxay u baahan tahay baaritaan iyo dabagal madax bannaan. Kiiskani waxa uu sidoo kale iftiiminayaa xaaladaha ballaaran ee ka jira dawlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo boqolaal dhalinyaro ay ku wajahayaan shaqo la'aan, saboolnimo iyo fursado nololeed oo kooban. Dad badan ayaa ku qasbanaada in ay shaqo u raadsadaan meelo ka fog guryahooda iyo qoysaskooda. Sanadihii u dambeeyay in ka badan 42,000 oo arday ayaa u fariistay imtixaanka dugsiga sare ee gobolka Soomaalida balse wax ka yar 500 ayaa ku guuleystay iyadoo fursadihii ay sii yaraanayaan dhalinyaro badan ayaa lagu qasbay inay nolol u raadsadaan deegaano kale. Sidaa darteed ururka wanalef waxa uu tilmaamayaa in arrintani aysan ahayn mid cadaalad ah dhinaca kalena ay tahay arrin ka baxsan qiyamka bini'aadantinimada. Ururka wanalef wuxuu ugu baaqayaa hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay, ururka xuquuqda aadanaha, bulshada rayidka ee Soomaaliyeed, qareennada iyo dhammaan dhinacyada ay khusayso inay si dhow ula socdaan xaaladda dhalinyaradani si loo xaqiijiyo badqabkooda, karaamadooda iyo ilaalinta xuquuqdooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay ururka wanalef oo ka hadlay 62 dhalinyaro ah oo loo gacan galiyay dawladda Ethiopia.